trade life sameynaya insha Allah akoonka ku trade garanayna dabcan waa arkaysaan $34 baa ku jirto insha Allah waxaan rabnaa inaan faa'iido ku darno ama profit ku darno biidnillah marka hadda trade-kayga waa valid retestigan baa rabaa inaan ka qaato marka tusaalaan hadda halkan ka qaato asalkayga waxaan rabaa inuuna igu weynaanin 26 bib oo kale marka 0.07 baa ku baagareena marka TB-gana insha Allah wuxuu noqon doonaa isagana sidoo kale 50 bib risk baa qaadanaya runtii waxa weeye waanu arki doonaa insha Allah trade-kani waxa uu ku dhamaado biidnillah 20 bib hadduu soo qoysiiyo waa manage garan doonaa trade-ka inaan break fundigo profit-kana qayb ka xirto ma fahamsan so let us go inshallah way TB1-kan xagga u noqon doonaa biidnillah this one waa entry point-geena okay boom baa u baahanahay boom inshallah xaggana TB2 inoo noqon doonta biidnillah you see hadda profit baa inoo wada inshallah okay haynagu soo laabanin leedha inshallah 15ka hadduu closing sameynaya isaga 2 minute camal u dhiman yes alxamdulillah see boom okay hadda waxaa xiri doonaa inkastoo iska yartahay faa'iida laakiin 0.02 close garee okay 0.05 baa ugu jira mujada waayahay asalkaygana insha Allah waa iska yareen doonaa isagana okay hadda asal xaggan baya 20 bib kiisa marka istaraatiijiyada ku trade gareynaya aniga waxaan iska simalkaa weeye uma baahnid suuqa dad waxa arkay ayaka suuqa isku adkeynayaan yani xaggan waxa arkaysaa magaca ku qoran xaggan magaca ku qoran inta xaggan magaca ku qoran halkan magaca ku qoran dad doonaysa inaad lacag samaysid macna ma sameynayso waxaas adaaba suuqa isku adkeynaya da meel kasta magac u soo bixinaysa dajaartayga aniga waa qaleel oo arkaysaa marka laga tago halkan trade ka qaadanayo يعني wax kale to adeer waxa la dhaho meel kasta waxa ku qorqorayo ama magaca u bixinay ma arkaysi iska faham mana u baahnido bitaali wax muhiim ah hadda ma fahamsan wax laga maarmi karo so يعني ina ma taqaana aad maxaa trader ka tahay hadaada garanayn ba waxa way ma taqaanay ama aad maskaxdaada ka analyze gareyn karo waxyaabaha qaar instead of waqti ku bixinada magaca ku qorqor leh trader mati qof beginner ina taa cadeynaysa hada meel kasta magac u bixinaysa لأن si aan u aqoonsado meesha fahamsan macna ma sameynayso laakiin real trader hada tahay you don't need ina waqti badan iska wastigrays just waxaan maskaxdaada ku hayso high way low way breakout waa meesha ka dhacay fahamsan meesha waa zone meesha waa gap madaxa ka hayso and then go ahead marka isla aragna insha Allah trade-ka si fiican buu dhaqaaqaya TB2 inuu gaarsiiyo rabnaa boom adii hadda akoonka $34 ku jirta hada konton geeno xaqiiqatan waxa waaye ku darno almost $20 ku dhawaad waa good very good in only one trade alhamdulillah you see $47 total waa close gareyn doona wallahi konton haduu gaarsiiyo that's it xiri doona trade okay so hadda TB2 buu joogaa wato waxa rabaa hal mar u dhaqaaq fiican sameeyo kontonka uu gaarsiiyo insha Allah that's enough for me so week ba madana soo qaadanay laakiin cabsi ma jirto suuqa TB2 uu gaaray almost wuxuu bixiyay 34 bib laakiin aniga waxaan doonaa saaxib sida arkaysaan marka dabcan new 15 baa furmay iminka new 15 minute candle so week hadda uu soo qaatay marka I think waxa baahnaa hadda inuu si fiican dhaqaaq bulsho uu sameeyo okay insha Allah hadda halka marka la re-entry baa ka sameyn doonaa waxa ku baagaran doona isla 0.02 ah markii horeeto aan ka xiray waa ku baagaray mujada so okay hadda $48 alhamdulillah si hadda duu TB1 ka gaar xitaa maybe konton ku siin kara okay enough saac enough you can see enough $50 sida u jeedana saaxiib trade-ka full target-ka uu bixiyay kontonkii bib uu gaaray laakiin aniga ma doonayo inaan grade noqo target baa lahaa profit targetkayga waa gaaray alxamdulillah waana close gareystay there is no way aan suuqa u siiyaysan karay
ujeedada muuqaalkana gabi ahaanba ma ahayn inaan iraado yacni lacag baa sameynaya iyo waxa lamidka laakiin inaad just motivation ahaan u qaadataan sidoo kaleetana aad waxa weye analyska aan sameynaya inaad ka faa'iidaystaan iyo maaragtay qaabka aad trade ku weysanayay inta aad trade-ka ku jiray oo emotionkayga u controlaysay anigoo waliba riski qaatay lodkaa suuqa ugu jira u weynaa sometimesna dharowdhan liigu soo qabanaya haddana aanan marnaba waxa weye mataqaana isdhiibeynin ugu dambeyn aragtaan inaan TP-ga helay nabadgelyo